calaf yaraadiyo sida caana jiilaal cabdhowoo cankanuu dudo dolol cayn wareegtiyo cidhagama waayo cidhibteedu gul male nabadii daawadayaal dilahaantiiba ku soo dhawaada barnaamijka telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland idinka diyaariyay dadweynaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Faransiiska oo soo dhaweeyay ictiraafkii councilka Cardiff uu shalay aqoonsaday jamhuuriyadda Soomaaliland dadweynaha reer Soomaaliland oo halkan ku dhaqan ayaa si aad iyo aad ah u soo dhaweeyay arrinkaasi kuna tilmaamay guul taariikhiya iyaga oo ra'yigooda ka dhiibanayana waxa hadaladoodii kamid ahaa sida tan kusoo dhawow adar telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo bal ra'yigaaga arrinka shalay ka dhacay Cardiff waan dhowahay aad iyo aad mahadsan tahay aniga oo magacaygu yahay Yaasiin Xaaji Xasan Ciid ku nool waddanka Faransiiska gaar ahaan magaalada Ooshay waxaan ra'yigayga ka dhiibanayaa jaaliyadda waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Cardiff hawlgalka weyn ee ay ka fuliyeen magaaladaas iyadoo ay aqoonsi ku dadaalayaan sidii u keeni lahaayeen itaalkooda inta ah annagu haddaanu nahay jaaliyadda waddanka Faransiiska waxaan leenahay hambalyo 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 ilaahay hadin garab galo waxaan kaloo ka codsanayaa jaaliyadaha Soomaaliland ee caalamka sida Mareykanka Yurub bilkisa joogaan ay ku daydaan walaalahooda ku daydaan dadaalay anaguna waxaan leenahay waar kaliya laabaan idinaynaa hambaliyo halka ka sii wada ku dhammaan waddanka Ingiriiska waan jecelahay inay ku socotaan oo Cardiff iyo magaaladii kale Sheffield labada waan yahaynaa socda oo waliba London ka bisleeya ducada ayaan idin soo badinaynaa wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkan hambaliyo uga dirayaa anigoo ah Maxamed Abuukar Xasan Dhukaal waxaan uga dirayaa jaaliyadda ku dhaqan UK gaar ahaan Cardiff waxaan ku hambaliyeynaynaa waxqabadka ama maxay hawsha weyn ee ay qabteen ee magaranayay waddankoodii u qabteen waxaan ugu arkaa wax weyn oo Soomaaliland ku soo kordhay baan u arkaa haddaan ahay Maxamed Abuukar Xasan waxaan hambaliyeynayaa dhammaan jaaliyadaha ku dhaqan Yurub America Soomaaliland meel kasta waxaan ku hambaliyeynayaa jaaliyadda Sheffield waxqabadka ay qabatay si weyn baan ugu hambaliyeynayaa haddaan ahay Maxamed Abuukar Xasan jaaliyadaha kale ee Yurub iyo America waxaan leeyahay saas oo kale ku dayda anaguna haddii aanu nahay jaaliyadda Faransiiska sida ay si lamida ayaanu waxaan ku talagalaynaa ama aanu geed dheer iyo geed gaabanba u fuulaynaa sidii aanu sida Cardiff ama Sheffield oo kale aanu anaguna ugu qasbahayn kawsarada ama magaranayay baarlamaanka sidii ay u ictiraafayeen Soomaaliland insha Allah bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Xamse Cabdi Ibraahin waxaan deganahay magaalada Ooshay waxaan jecelahay inaan kelmad ka idhaahdo go'aankii taariikhiga ahaa ee shalay oo taariikhdu ahayd 25kii bishii saddexaad ee 2015 ay qaateen golaha deegaanka ee magaalada Cardiff sidii ognahay waddanka UK ama waddanka la isku dhahay United Kingdom wuxuu qaybsamaa saddex dal ama saddex maamul oo kala ah North Ireland, Scotland iyo Wales marka Wales oo caasimadeedu tahay Cardiff shalayto waxay inoo qoonsatay deegaankeedu inay nahay dal jira runtii waa tallaabo geesnimo leh oo go'aan taariikhi ah oo aan ku hambaliyeyno cid kasta oo arrinkaasi gacan ka geysatay waxaan si ku darsanayaa hadalkayga golaha deegaanada ee dalka UK tii hore ee Sheffield iyo tan dambe ee Cardiff waxay u eegyihiin oo aad moodaa inay dadka shacabka ee dalalkaasi degani ay iyagu la yimaadeen barnaamijyadan marka waxaan runtii dadkaas tabayaan dadaalkii iyo dardartii dawladda kal hore sanadkii hore waxayna qoostay magaalada Sheffield oo inoo qoonstay inaguna inuu nahay dal jira waxaan si ugu baaqayaa dadkii labada aqoonsiba soo dhiciyay ama labada barnaamijka soo bandhigay inay ka codsadaan oo weydiistaan kaalmo hadday tahay inay jidadkeena la dhisaan hadday tahay inay leerkeena naga caawiyaan hadday tahay inay biyaha wax nagala qabtaan magaalada Ooshay aanu deganahay
waxa ay xidhiidh la leedahay taariikhiya magaalada Bamako ee caasimadda waddanka Mali marka saasoo kale hadday suuragal tahay in Cardiff iyo Burco kala la mataanayo Sheffield oo Hargeysa kala la mataanayo wax weyn ayay ka qaban karaan baahiyeena badan marka waa dareen yidiida leh oo talaabo cudoon oo aan ku hambalyeeyno cid kasta oo arrinkaasi gacan ka qaatay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu Yaasiin Axmed Daliil oo ku nool dalka Faransiiska magaalada Ooshay kana mid ah dadka reer Soomaaliland ee ku nool magaaladan waxaan hambaliyada la wadaagaa saaxiibada iyo dadka reer Soomaaliland ee hambalyeeyay jaaliyada reer Soomaaliland ee ku nool UK guud ahaan gaar ahaan dadka ku nool reer Wales maamulka Wales oo caasimadda Stay Cardiff aqoonsiga ay u fidiyeen jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhdu markay ahayd 26kii bishii saddexaad 2015 waxaan leeyahay waa talaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday oo aanu runtii ku faraxsanahay dadkii ka soo shaqeeyay hadday tahay maamul hadday tahay jaaliyado iyo hadday tahay dadka deegaanka u dhashay Cardiff waxaan xasuustaa sanadkii hore inayna ictiraafeen golaha deegaanka ee Sheffield waa talaabo kale wanaagsan oo tii xoojinaysa waxaanu ka rajaynaynaa cid kasta oo hawsha qabanqaabadeeda lahayd oo xoog iyo muruq iyo maskax iyo maalba ku bixisay inay mar labaad iyo mar saddexaad iska xil saaraan sidii ay maamulka sare ee baarlamaanka ee dalka UK ugu gudbin lahaayeen aqoonsiga Soomaaliland waxaan rajaynaynaa inay taasi la dhawaan iman doonto insha Allah waxa dadaalkaas sameeyay jaaliyadaha reer Soomaaliland Ingiriiska halkan ku dheeda reer Soomaaliland badan baa jooga jaaliyadaha ka dhisan miyaanay talaabo iyo hawl inta la ahayn maadaama aan dhamaantiin wada safiiranahay aad iyo aad sida la socoto jaaliyadaha reer Soomaaliland ee UK ku nool waa jaaliyada xidhiidhaystay oo ugu yaraan dhowr iyo 20 sano in ku dhow maray halka dadka reer Soomaaliland ee Faransiis ku nool ay hadda bilow yihiin marka waxaan rajaynayaa inay ku dayasho mudan tahay waxaan rajaynayaa insha Allah taala intaan soo nimaadno inaan tahay mid ka sii badan ba sameyn doono laakiin waxay ku xiran tahay inta waqtiga iyo la qabsiga iyo sidaan ugu xidhiidhaysan lahayn dalkan taana filowgeedu waan haynaa insha Allah taala bilow fiican oo sameyn doona waan u diyaarsanay inaan contribution dalkii ku celino aad iyo aad badan adiga assalaamu calaykum aad iyo aad bay u badan yihiin dadweynaha goobta ku sugan ee reer Soomaaliland dhankayga waxaa taagan wiil kale oo isna reer Soomaaliland ku soo dhawaal barnaamijka adiga ku gaabaya bal magacaaga iyo sida aad u aragto arrinkaas magacaygu horta waxa weeyaan Cabdiqaadir Xasan Axmed kunool dalka Faransiiska magaalada gaar ahaan magaalada Ooshay halkan waxaan aad uga hambalyeeynayaa shacabka ku dhaqan magaalada Cardiff iyo golaha wakiilada golaha deegaanka ee magaalada Cardiff oo talaabo aad iyo aad u wanaagsan oo horumar leh oo ku dayasho leh ka qaaday ictiraafka Soomaaliland aqoonsadayna waxaan u soo jeedinayaa in bulshooyinka reer Soomaaliland ee caalamka ku dhaqan iyo dalalka Yurub iyo dalalka Mareykanka inay ku daydaan golaha talaabada ay qaadeen Cardiff iyo Sheffield waxa kale oo aan inta ku darayaa waxa aan halkan iyana aan aad ugu hambaleynayaa bahda TV-ga qaranka ee dalka Yurub hadday tahay shaqaalahooda iyo madaxdoodaba oo si fiican oo live ugu soo tabiyay barnaamijyada oo kii u dambeeyay oo ahaa waddanka Belgium oo aan live u daawaynay iyaguna shaqo wanaagsan bay qabteen oo magaranaysaa si fiican bay uga qabteen bulshadooda in ay soo tabiyaan barnaamijyada live-ka iyo wixii magaranaysaa baahida bulshada ay u qabto waxaan kaloo aad u hambaleynayaa agaasimaha TV-ga qaranka ee dalka Yurub qaaradda Yurub Cabdiraxmaan وسقنا si fiican uga shaqeeyay waana mahadsantiin aad iyo aad mahadsantiin magacaygu waxa weeyaan Aadan Cabdiraxmaan Ibrahim aan nahay dadka ku nool Yurub qurbaha Yurub oo dhan inay ku daydaan dadka ka bilaabmay dabka halka ka baxay ee ay shideen muwaadiniinta reer Soomaaliland halkan kana marba qof waa bilaaba mar mid buu ka bilaabaa laba buu ka bilaabaa saddex buu ka bilaabaa Sheffield buu ka bilaabay haddana Cardiff buu maraya waxaanu ku dadaalaynaa oo aanu aad doonaynaa inaanu ku dadaalo in aanu ku wada dayano meel kasta oo qurbo joog ay ku nool yihiin waa jihaad waa halkan dab rag noo shiday oo dad noo shideen Ilaahay halka siiyo inamada warbaahinta ee duubaya ee doonaya in wacyigelinta meel walba ka bilaabaan Ilaahay iyagana ka shaqeeyo TV-ga qaranka ee nala jooga maanta magaalada Ooshay waxaan u leenahay hambalyo inanka TV-ga qaranka haya ee noo yimi ee wacyigelintan soo gaarsiinay waxaan u leenahay Ilaahay isna ka shaqeeyo waanu hambalyeynaa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay aadan waxaa kaloo isna goobta ila jooga gudoomiyaha urur aad iyo aad ugu hawlan sidii bulshaweynta Faransiiska uu uga dhaadhicin lahaa qadiyadda Somaliland kusoo dhawo walaal barnaamijka weli daawadayaal waxaanu si toos ugu guda jirnaa barnaamijkii dadweynaha Faransiiska ee reer Somaliland ay ra'yigooda kaga dhiibanayeen sida ay u arkaan arrinkii guusha ahaa arrinkii taariikhiga ahaa ee reer Cardiff ay shalay toole kaga soo ansixiyeen councilkooda inay Somaliland aqoonsadaan kusoo dhawaal barnaamijka adiga ku bilaabaya magacaaga iyo ra'yigaaga aad baa u maasantay Jamal horta marka hore magacaygu waa Abdiraxmaan Cali Xandulle oo ku nool dalka Faransiiska gaar ahaan gobolkan la yiraahdo Pays de la Loire waan joognay magaaladiisii Angers horta marka ugu horeysa Allah ma hadis kale intii isku keen kulmiyay hadda labaadna waxa iska leh xiriiriyeen fiican ee Jamal isku keen xiriiriye isaga lahaantii ismaanu gaar lahayn warkeenu ismu gaar lahayn talabaad aad iyo aad waxaan soo dhaweynaynaa aanu ku faraxsanahay arrintan ka soo baxday Cardiff ee aqoonsiga Somaliland taasna dad baa dhaliyay oo sideenoo kala hooyo aaba dhareeno 9 bilood ku dhashay waxaan uga fadhiyaa anaga dalkeena ku nool maanta Somaliland Faransiiska ee reer Somaliland inay intidiila fiican ay ka qaataan arrimaha ka soo baxay ay ku dayasho fiican usrata xasana sida nabigeena sallallahu alayhi wasallam aan ku dabadeen wax fiican ay waxa ay sameynayaan anaguna aan sii wadna hawsheena dhinaceena ka qabsano arrinta darteed waxaan u sameynaa anagoo kaashana jaaliyada badan aan gudooyin badan oo arrinta ku hawlan jaaliyada ilaahay raado shaqay doonta dalkeena Somaliland haday waxtar noqotay haday fal waxaas dadka waxaas oo dhan waa wax fiican oo danteena u fiican markay waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa halkan aqoonsiga ka soo baxay xalay shalay toole 26 Mars 2015 waxaan ilaahay ugu rajeynayaa inuu ilaahayna waddankeena aqoonsi fiican oo aqoonsimo dalkoo dhan ay u soo jeestaan hadduu ilaahay raado aad iyo aad noo maasantahay Jamal aad iyo aad maasantahay Cabdiraxmaan daawadayaal waxaa intaa ku eeg barnaamijkii aan idinka soo diyaarinay bal sida ay dadweynaha Faransiiska ku dhaqan reer Somaliland u arkeen guushii taariikhiga ahayd ee shalay 26 bisha saddexaad dadweynaha reer Cardiff ay ka geysteen magaaladooda Cardiff waa aniga oo barnaamijka la socodsiinayay Jamaal Cabdi Ibrahim telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Paris